subax wanaagsan khiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan arooryo suuban ayaan idin leeyahay waa 18 bisha November sanadka 2025 golaha ammaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhaxeeya ayaa meel mariya qaraarkii uu soo jeediyay dowladda Mareykanka ee ku saabsanaa in la dhiso golaha nabadda ee Gaza iyo sidoo kale in halkaasi la geeyo ciidamo caalami ah laakiin dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa qaaday tallaabo ashqaraar badan dhalisay kadib markii ay ka aamuseen arrintaasi haddaba sidee golaha u meel mariyay maxayse arrintan soo kordhinaysaa hadalka Mareykanka uu ka jeediyay golaha ayaan idin la wadaagi doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu xalay saqdi dhexe ku dhawaaqay in uu ka iibinayo dalka Mareykanka dowladda Saudi Arabia diyaaradaha F-35 oo kaliya Israa'iil ay ka haysatay bariga dhexe arrintan ayaa waxa si weyn u tabinaya saaka warbaahinta kala duwan ee dalka Mareykanka haddaba tani maxay tahay walaaca ay ka qabto nidaamka Israa'iil warbixin gaar ah oo qoray wargeyskada Israa'iil ee Hayom ayaan idin la wadaagi doonaa oo si gaar ah arrintan u faaqidaya isla markaana ka qoray warbixin amni oo la taxliiliyay si weyna diiradda u saaraysa Israa'iil in markan gacan sareyntii hawada iyo dagaalka gobolka bariga dhexe haatan ay jiraan dowlado kale oo la tartamaya haddaba Israa'iil goorta diyaaradahaasi ay heshay iyo guulaha dagaal ay ku gaartay ayaan idin la wadaagi doonaa iyo sida warbaahinta Israa'iiliyiintu ay u falanqeynayaan haddii Sacuudiga uu helo diyaaradahan waxa ay ka dhigan tahay dhinaca kale waxaan idin la wadaagi doonaa war la yaab leh oo ka soo baxay wasiirka amniga gudaha Israa'iil Itamar Ben-Gvir lagu magacaabo kaas uu ka horjeediyay golaha kaniisadda ee baarlamaanka Israa'iil waxa uu soo jeediyay in la xiro hogaamiyaha guud ee maamulka Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas Abu Mazen qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan bariga dhexe ayaan idin la wadaagayaa khiyaarta in nala socotay idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay subax wanaagsan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara aad baad u mahadsantihiin telefishinada kala duwan ee ka warrama bariga dhexe si gaar ah telefishinka Sky News oo xiganaya wakaaladda wararka ee Abu Dhabi iyo sidoo kale telefishinka Al Hurra ee gacanta uu ku hayo dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka warramayaan in Trump uu ogolaaday wariyaasha inuu uga jawaabo dalabka dowladda Saudi Arabia ee ku aadan in laga iibinayo diyaaradda F-35 oo ah nooca jiilka shanaad ee tiknoolajiyada dagaalka Mareykanka uu soo saaro taasoo dowlado fara badan oo adduunka ay si weyn u raadinayeen hadalkan ayaa Trump waxa uu ka sheegay aqalka Oval lagu magacaabo ee ku yaala aqalka cad halkaas uu kula warramaya saxafiyiinta goortaasi oo ay su'aalo kala duwan weydiinayeen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay saqdi dhexe shaaca ka qaaday xilli uu xafiiskiisa Oval uu kula hadlayay wariyaasha ku sugan gudaha wadanka Mareykanka in uu ogolaaday in Sacuudiga laga iibiyo diyaaradaha casriga ah ee dagaalka nooca F-35 loo yaqaano Trump ayaa waxa uu yiri waxaan dhihi karnaa waan samayn doonaa waxaana u muuqataa in tallaabadan la qaadi doono oo Sacuudiga laga iibin doono diyaaradahan taas oo durbaba dhalisay walaaca dowladaha gobolka bariga dhexe qaarkood sida ay qorayso wakaaladda wararka ee Reuters mas'uul ka tirsan aqalka cad ayaa xaqiijiyay in madaxweyne Trump uu u janjeero taageerada heshiiska iibka diyaaradaha F-35 ee boqortooyada Saudi Arabia ay soo dalbaday diyaaradda F-35 oo kamid ah kuwa ugu casrisan ee dagaalka isla markaana awood farsamo oo dheeraada oo sare leh ayaa waxa ay samaysaa duqeymaha hawada iyo ilaalinta difaaca qaramada diyaaradahaasi ku gaashaaman war-saxaafadeedka waxaa loo diyaariyay ka soo baxay Mareykanka ee Trump uu kula hadlay wariyaasha ujeedada in lagu xaqiijiyo macluumaadka rasmiga ah ee ku saabsan mowqifka dowladda Mareykanka ee arrintan muhiimka ah ee ku saabsan amniga gobolka iyo istiraatiijiyadda dagaalka marka la fiiriyo sida Trump arrintan uu u meel mariyo iyo waliba codsiga ka yimid qaar ka mid ah aan ilaahdee saxafiyiinta inuu ka jawaabo iyadoo la meel marinayo dalabka Sacuudigu ay soo jeediyeen oo ah diyaaraddaasi in laga iibiyo
haddaba arrintani waxay walaac ku haysaa Israa'iil oo ahayd awoodda kaliya ee dagaalka hawada bariga dhexe ugu sarreysa taas oo ku gaashaanayd diyaaradahan jiilka shanaad ee Mareykanku uu soo saaray kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi George W. Bush uu u ansixiyay in Israa'iil laga iibiyo xilligii madaxweyne Barack Obama ay diyaaradahaasi heleen. wargeyska lagu magacaabada Israel Hume ayaa qoray warbixin amni oo taxliilinaysa arrimahaasi dagaalka iyo waliba walaaca Israa'iil ay ka muujinayso in diyaaradahaasi ay Sacuudiga gacantiisa galaan. waxaana ay warbixintu ku bilaabaysaa sidan. ciwaansa waxa looga dhigay sidee heshiiska F-35 ee Mareykanka iyo Sacuudiga oo u burburin kara heerka awoodda sare ee cirka ee Israa'iil kaligeed ay ku naaloonaysay. warbixintan uu qoray wariyaha dhinaca ammaanka ee wargeyskaasi waxa uu leeyahay codsiga dhaxal sugaha Sacuudiga Amiir Mohammed bin Salman ee ku salaysan in boqortooyadu hesho diyaaradda casriga ah ee F-35 ayaa dhaliyay walaac weyn gudaha Israa'iil iyadoo khubaradu ay sheegayaan in heshiiska uu bedeli karayo miisaanka isu dheelitirnaanta awoodda iyo kala sarreynta bariga dhexe isla markaana uu weeqi karayo heybadii duulimaadka cirka ee dagaalka ee Israa'iil aan jirin cid markaasi kula gorgortami karaysay. tan iyo 1990 Mareykanku waxa uu ballan qaaday in la ilaaliyo waxa loo yaqaano awoodda military ee Israa'iil ee hawada. Israa'iil oo xilligaasi la siinaya tiknoolajiyadda ugu sarreysa uguna casrisan marka la eego dalalka Carabta xitaa kuwa saaxiibka la ah Mareykanka, laakiin hadda xaqiiqadaasi waxay ka tallaabtay qadka cas marka mid ka mid ah dowladahaasi laga iibiyo diyaaradda F-35 waana Sacuudiga oo xilligan noqonaya mid ka mid ah awoodaha ugu sarreeya xagga duulimaadka cirka iyo dagaalka ee gobolka bariga dhexe. maxaa F-35 ka dhigaya mid halis ku ah Israa'iil ayuu wargeyskan ciwaan hoosaad u qaatay. waxa uu leeyahay diyaaraddan waxay leedahay awoodo isku dheelitiran oo dhinac walba iska kaabaya. waa mare waxay leedahay awood sirdoon iyo adeega dhinaca tiknoolajiyada oo aad u sarreeya. diyaaraddu waxay awood u leedahay gelitaanka hawada iyadoo adeegsanaysa difaac sare isla markaana weerar toos ah qaadi karaysa. waxay leedahay qalab kobciya awoodeeda istiraatiijiga ah ee qaran kasta uu ku naaloonayo in mar uun gacantiisa ay soo gasho. Israa'iil ayaa heshay F-35 markii uu ansixiyay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush lana fuliyay intii uu xilka hayo Obama iyadoo la siiyo ogolaanshiyo ay ku samaysan karto isbeddello gaar ah oo sir ah oo nidaamsan oo elektrooniga. diyaaraddu waxay bixisaa baa la yiri waxa loo bixiyay Adir oo waxay soo degeen Israa'iil ay soo gaareen sanadkii 2016 waxaana hadda tirada ay haysato lagu sheegay 36 diyaaradood iyadoo loo ansixiyay in laga iibiyo 25 kale oo diyaaradahaasi ah taas oo wadarta guud ee Israa'iil iyo diyaaradahaasi ka dhigaysa inay 60 diyaaradood heli karayso. dagaalkii libaaxa soo kacaya Israa'iil ee ugu magac dartay oo ay la gashay wadanka Iran ee 12 maalin socday ayaa diyaaradahan waxay noqdeen kuwa soo bandhigay awoodda cirka ee Israa'iiliyiinta. intii uu socday howlgalkaas cirka ah ee loo yaqaan libaaxa soo kacayay waxay Israa'iil awood u yeelatay diyaaradaheedu inay soo bandhigaan awood xooggan. haddaba Israa'iil maxaa Israa'iil ay ka baqanaysaa haddii Sacuudiga ay helo diyaaradan? ma waxay ka dhigan tahay in Sacuudiga uu weerari karayo mise waxa jira baqdana kale oo qarsoon oo aysan wali warbaahintu si sax ah u helin? inkastoo Sacuudi Arabiya maanta loo arko saaxiib istiraatiiji ah oo Mareykanka la socda, haddana Israa'iil waxay ka baqaysaa markasta in ay wax isbedeli karayaan. laakiin siyaasadda Mohammed bin Salman ayaa durbaba noqotay midda walaac gelisay Israa'iil isla markaana dhistay awoodda dowladda Sacuudiga ee gobolka bariga dhexe sida khubaradu ay ku doodayaan. golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa xalay meel mariyay qaraarka Mareykanka ee ku saabsan in la dhiso golaha nabadda ee Gaza isla markaana halkaasi la geeyo ciidamo caalami ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa fiidnimadii Isniinta ay salaasadu soo galaysa ansixiyay
qaraarka Mareykanka ee tirsigiisu yahay 28/3/2025 taas oo lagu taageerayo heshiiska xabad joojinta ah ee Gaza laga gaaray isla markaana golaha nabadda iyo ciidamada caalamiga ah ee kumeel gaarka u ogolaanaya in la geeyo guud ahaanba magaaladaasi go'doonsan muddada dheer hase ahaatee wadamada Ruushka iyo Shiinaha ayaa ka aamusay iyagoo aan isticmaalin codka diidmada qayaxan ee veto-ga loo yaqaano dowladahan qaarkood ayaa u sheegay wariyaasha markii shirka uu soo dhamaaday in ay jiraan meelaha qaar walaac ay ka muujinayaan balse aanay isticmaalin codka diidmada qayaxan sababo la xiriira in aanay carqaladayn nabadda magaalada Gaza iyo dhibaatooyinka halkaasi muddada dheer ka taagnaa waxay ku soo aadaysaa talaabadan iyadoo Mareykanku uu doonayo in magaalada Gaza nabadeeda laga shaqeeyo oo isbeddello waaweyn halkaasi ay ka dhacaan nidaamka Israa'iil wasiirka ugu magacaaban amniga gudaha Itamar Ben-Gvir ayaa ku dhawaaqay in la soo xiro hogaamiyaha maamulka Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas Abu Mazen isla markaana la qaarijiyo inta badan madaxda Falastiiniyiinta ee dowladda Fatah ka tirsan waxa uu ku tilmaamay inay kurnaaloonayaan oo ay rajaynayaan aragti la xiriirta in la dhiso dowlad Falastiiniyiin ah oo gobolka bariga dhexe ka hana qaata taas uu tilmaamay in Israa'iil haba yaraatee aanay aqbali karaynin waxa uu dhinaca kale sheegay in la meel mariyo in maxaabiista la dilo haddii lagu helo falal muujinaya dambiyo ay ku lug leeyihiin oo dagaal ah dhinaca kale waxa uu sheegay mid ka mid ah magaalooyinka laga qaatay Falastiiniyiinta inuu ka joojiyay adaanka salaada markii uu yiri waxa uu ahaa mid macno darro ah waa sida uu leeyahay shirkaasi amniga ugu magacaaban Israa'iil arrimahan oo dhani waxay ku soo aadayaan iyadoo xaaladda gobolka bariga dhexe ay gabi dhaclaynayso isla markaana aan la ogeyn sida mustaqbalkooda uu ku soo dhamaan karo Ben-Gvir waxa uu ka mid yahay wasiirada ugu adag ee nidaamka Benjamin Netanyahu uu hogaamiyo waxaana xilkan uu soo hayay ilaa 2022 isagoo dhowr jeer oo hore ku xadgudbay goobo muhiim u ah muslimiinta saatee fariintan soo xiritaanka Abu Mazen uu codsaday waxay ka dhigan tahay mid dunida u diraysa tallaabo iyo fariin kale oo aad u adag oo suuragal tahay Israa'iil inay ku dhaqaaqaan iqyaaray meel kasta oo aad joogtaan subaxnimadan tabinteennii aroornimo inta ayaan ku soo gabagabaynayaa waa barrow idile nabadi